guurku waxa uu ka mid yahay sababaha dhaqaaluhu ku kordho. waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay isdhaahdaan faqri baaba kugu dhici doona haddii xaas sallad ama kolay sidata iyo ciyaal kaa daba qaylinaya ay soo kordhaan. meeshaadan iska joog. nin reer magaalo qoladii qurbaha ku raagaya ayaa waxaa la yidhi war hebelow iska guurso. markaasaa wuxuu yidhi maxaan guursadaa, weli wax badan maan ururinine, xoolo badan ma hayo. may iyaba arsaaqadeeday wadatahay iska guursa baa layidhi. waayahay buu markuu guursado 7 cishe u horreysayba biilka saarayay miiska ayuu iyadii la hadlay. markaasaa wuxuu yidhi heblaayo saaxiibadee waxay ii sheegeen in arsaaqadaadii wadatay, arsaaqadaadii meeday. war wixii aad sheegaysa wuu socon waayey buuhi. 7 cishaanu joognayoo waxba may keenin buuhi. marka inaad sidaa noqoto ma aha, laakiin innaga caqliyadeenni iyo garaadkeenni iyo iimaankeennu wuu weyn yahay. waxaynu aaminsannahay inuu ilaahay sabab adiga kaaga soo dhigayo oo adiga uu kugu soo dhiibayo iyada. waayo nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu ku yidhi ninkii walaalkii biilinayay lacallaka tursaqu bihi, waxaa laga yaabaa in isaga lagugu arsaaqayo, arsaaqadda isaga daraaddii lagugu fududaynayo. sidaa daraaddeed baa cumar ibnu khadaab wuxuu lahaa cajibtu liman ibtaqa alghinaa bigayri nikaax wallaahu yaquul in yakunuu fuqaraa'a yugnihim allahu min fadli. qofkii doonaya maal ha ka raadiyo sidaa ilaahay u ballanqaaday guurka. abubakar sidiiqna waxau lahaa radia allaahu canh adiicu allaha fii ma amarakum bihi min annikaax yunjiz lakum maa wacadakum bihi min alghinaa. ilaahay amarkiisa qaatoo guursada, isaguna ballantaa uu idiin qaaday ah inuu maalqabeen idinka dhigi doono wuu idin siin doonaa. rasuulkuna sala allahu calayh wasalam waxa uu ku yidhi xadiid xasan oo la daliishin karo, 3 ilaahay baa iska rabtaaga. waxaa ka mid ahaa annaakixu yuriidu alcafaaf, qof guursanaya oo doonaya inuu xaaraan ka dhowrsoonaado iyo sino. bushaarooyinkaasina way jiraan.